الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال دمانتين ولا لها شرفت لي كسو قيب قال الشركة ولا لها أدونك نجد سنة يا إنترنتك. وحنو دي كسو دوينينا maalintii shirka ugu dambeysay iyo muxaadaradii saddexaad oo inoo soo jeediyo walaalkeen Sheekh Maxamed Idriis, waana muxaadaradii si labaad. muxaadarada maanta ama mawduuca maanta waxa uu ku saabsan yahay qur'aanka kariimka ah iyo habkii uu u saameeyey ama xaaladihii ummadihii hore sida uu qur'aanka kariimka ah ay ugu noolaayeen ee ay u fulin jireen ee ay u tadbiiqin jireen ayuu walaalkeen muxaadara ku saabsan noocaas oo mawduuca ka hadlaysa ayuu inoo soo jeedin doonaa. Allah subxaanahu wa tacaala ha naga dhigo kuwii ka faa'iidaysta ee dabaqa ee ku dhaqma qur'aanka kariimka ah waxyaabaha uu ina farayo. asagana Allah subxaanahu wa tacaala ajir iyo xasanaad ha ka siiyo. waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka Sheekh Maxamed Idriis, falyatafaddal mashkuuran. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، موضوع وحويه القرآن وحال الأمم السابقة. قرآن كريم كاه إله عز وجل وحنو غشكي أمده هراء wixii ay soo mareen iyo nebiyadoodii wixii ay isla soo mareen iyo xaaladahoodu waxay ahaayeen. arrinka haddii aynu wax ka falanqayno waxaan ogaan karnaa 5 arrimood oo ummadaha hore ku saabsan. midi waxa weeye qisooyinkooda, sidoo Ilaahay Azza wa Jalla noogaga sheekeeyay noogaga warramay ummadihii hore. midna waxa weeye sunnada Ilaahay Azza wa Jalla ummadaha uu leeyahay. sunnaduna waxa weeye jidka ama dariiqada ama qaabka Ilaahay Azza wa Jalla uu la macaamilo iyo qaanuunka uu kula macaamilo ummadaha. qodob saddexaad waxa weeye ajasha. ummad walba waxay leedahay ajal aanay dib uga dhici hayn ugana hormari hayn. qodobka saddexaad waxa weeye insaanka Ilaahay Azza wa Jalla wuxuu siiyey iraado iyo awood buu siiyey Ilaahay Azza wa Jalla oo waxna
ku go'aan qaadan karo, wax ku diidi karo, waxna ku oggolaan karo. qodobka u dambeeya shanaad waxa weeye ummadaha iyo xaalada qur'aan ku saabsan waa al-i'tibaar, in lagu cibro qaato oo cibro loo yeesho wixii soo hormaray ee ummadihii hore ilaahay casa wajalla uu kaga sheekeeyey qur'aan kariimka. wa akhiiran ummaddan islaamka iyo facyaashadii hore sidii ay ula mucaamuleen ama ay ugu ajiibeen qur'aan kariimka. maalin maalmaha ka mid ah nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa u yimi nin ka mida quraysh odayaasheedii. wuxuu ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam, ninkaasoo la odhan jiray cutba ibnu rabiica, wuxuu ku yidhi, yaa muxammedow, ummaddaadii waxaad ula timi wax aan cidina u keenin. waad kala qaybisay, waad isnecbaysiisay, wiilkii iyo aabbihiis baad kala cayrisay, khilaaf baad ka dhex dhalisay quraysh. sidaas darteed arrimaan kuu soo bandhigayaa. arrimaha wixii aad ka oggolaato ayaan u geynayaa tolkaa arrimaha wax ka oggolow. waa yahay buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo dhegaysanaya. soo daa abalwaliid baa la odhan jiray ninka. qul yaa abalwaliid asmac, waan dhegaysanayaa, soo daa. wuxuu ku yidhi, arrinkan aad la timi nebinimada haddaad ku doonayso madaxtinimo, madax baan kaa dhigaynaa. haddaad ku doonayso xoolo badni, waan ku ururinaynaa, kaayaga ugu xoolo badan baan kaa dhigayn. haddaad ku doonayso gabdha inaad ku guursato, gabdhaha ugu qurux badan ee ugu wanaagsan, gabdhaha iyagaan ku siinayn. haddii uu jirro yahay iyo xanuun ku haya iyo sixir iyo jirro, waxaan ku raadinaynaa cid ku daawaysa. laakiin arrinkan aad la timi ka garbax oo reerkaagii quraysh aad ku kala qaybisay. nebigu calayhi salaam wuu dhegaysanayey. markuu hadalkiisii dhammaystay buu wuxuu yidhi, ma dhammaysatay hadalkaagii abalwaliid? wuxuu yidhi, waa dhammaystay. wuxuu yidhi, waa yahay, bal anigana marka iga dhegayso, anigana iga dhegayso. muxuu kula hadlay marka nebigu calayhi salaatu wasalaam? khudbad muu u jeediyey? maya. nebigu calayhi salaam wuxuu ku dul akhriyey qur'aanka, isagu jawaab uga dhigay. wuxuu yidhi, abalwaliidow, anigana bal iga dhegayso. acuudu billahi min ashaytaani alrajiim. bismi illaahi arraxmaani arraxiim. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر
مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون نبي عليه الصلاة والسلام مركو آياتها كو أخريي أو مريي فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود waxaan idinku digayaa haddaad diidaan qur'aanka iyo kitaabka ilaahay haddaad diidaan iyo risaalada waxaan idinka digayaa dhawaaqii kala jeexay caad iyo thamuud iyo halaagii ku dhacay ayaan idinka digayaa marka waa digniin waxaan idinka digayaa wixii ku dhacay reer caad iyo reer thamuud oo ay yaqaaneen oo qabaa'il carab ahaa ayaan idinka digayaa wixii ku dhacay haddaad rumayn weydaan kitaabka ilaahay halkaa markuu marayo ayuu ninkii carabkaa wuxuu yidhi xasbuka nashadtuka arraxim yani ilaahay baan kugu dhaariyey halkaa jooji buu yidhi halkaa ku jooji
isaga oo wararsan buu ka tegey wuxuu yidhi niman yahow quraysh ninkaas ma u jeedaan wuxuu sheegayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ninkaa iska daaya bannaanka mara walle ninkaas waxa uu akhrinayo uu sheegayo inaanu gabayna ahayn sixirna ahayn wax hadal dadna uyan ahayn ayaan mara ka ahayn ee ninkaa iska daaya hadduu ummadaha ka soo baxana oo ka sara marana idinkay sharaf idiin noqonaysaa quraysh haddii ay ummadaha kale isku jabaan hadda waa laydinka kaafiyey idinku laakiin dagaalkiisa iska daaya quraysh waxay yidhaahdeen waa lagu soo sixray niyo wuu ku soo sixray sixirkii buu ku taabsiiyey markaa waxba kama yan aqbalin waxaan uga gon leenahay nebiga calayhi salaatu wasalaam qur'aanka ayuu u cardin jiray ummadaha iyo dadka uu u cardinayo risaalada dadka uu u sheegayo nebigu calayhi salaam dacwada gaarsiinayo wuxuu ku gaarsiin jiray qur'aanka ayuu ku gaarsiin jiray qur'aanka ilaahay caza wajalla waxyaalaha aan ka dareemayno ee markaan risaalada u fiirsanno ummadaha ay soo mareen waxa weeye kow waa indaar in loo digo labo waa loo naseexaynaya ummadaha naseex bay ducaadda iyo rusushu ay u yihiin naseex waxay ka doonayaan mala xoolo kagama rabaan diinta ay u sheegayaan iyo khayrka ay u sheegayaan iyo ilaahay hanuunkiisa iyo jidkiisa soo raaca laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuura ladinkagama rabo mahadcelin iyo abaalgud iyo xoolo ma asalukum calayhi min ajr in ajriya ila cala allah rasuul walba sidaas ayuu ku oranayay qowmkiisa waxaan idinkaga rabo oo ajara oo xoolaa ma jiro ilaahay caza wajalla ayaan kaga doonayaa ajar marka in loo digo waa kow yaa ayuha annabiyu ina arsalnaaka shaahidan ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إذن هو نذير ثانيا ونصيحه إن النصيحيان ومضى هذا ولذلك الرسول وحن أركينا سيدا يقول نصيحيين هي سيدا يقول تلطفين هي سيدا سيه فن قرحا أن عي كجرين أن حمان كجرين أي ضدك دينت إلهي وعرضيين تاسنا وحن كأرك دونا بعض النماذج يعني الصورة ذا أيان كالسوقاذن دونا أن أرقنه نبي يدي إيا الرسوشي إيا دادك دعادة إلهي الصادري سي نبي وما أولها اللي جرين سي وقلنا سيحين جرين ومضى هذا لو نبهي إن قرآنك لو فهمه ومضى هنا أي أقفى إذا استان أرقى صدعوا عوي شفقة بهم دادكن naar bay ku sii hoobanayaan cara ilaahay bay gelayaan juhalo wey waxba ma yaqaaneen iyagoo isla weyn oo isxumaynaya oo isbaabi'inaya oo ilaahay caza wajalla caradiisi ku dhacaya ayaa rususha iyo nebiyada iyo ducaadu ay ka qabanayaan oo ka celinayaan icinka war ka jooga war dabka ka jooga marka si naxariis leh oo hufan oo ay ku jirto naxariis iyo raxmad iyo kan nixid ay ka naxsan yihiin dadkan waxa ay ku ordayaan ayan garanay meel ay ku socdaan oo xun ayan garanay sida uu yiri nabiyullaahi صالح عليه السلام يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصح لكن إلهي وأن نصيحين إياه والرسالة إلهي بان قارسين إياه لكن نصيحة هذا مجعل لا تحبون الناصحين تاسو كلوي قوم كستأو وناقي لو شيء دينتي بلو شيء قرآنك بلو شيء كتابك إلهي بلو يريا مركاسي تنك تاغيان ومدح تاغيان يعرضون إياه كجنسانيا أو وحيالك لكو صفينيا أو قلده وحقارسين يسر رسوشا يا النبي يدا كنت الماميا إياه إنا يهنددان عقل لهين ضدمان قابان ضدان سياسة فهميهين ضدان اندر قرض أهين أي كتهم يسانيان قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا
وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. شك بابا نجا جرا واحد شقي السنية واحد شقي شك بابا نجا جرا مركا الرسوشنا وحي موجنا يا نحريس ترتيب إيه سوى ناكسن أي أولاد الليان مدى أفراد وأن كفى إذا سنة وعوي الحكمة في الدعوة لهم رسوشا إيه ضدك صالحين تأهل الصعداء وحي أذيك سنة يعني حكمة كما عرونيان كما حناقيان مع عينيان لمر من ميان وحي بيانين يا الرسالة إلهي وأيو عقابك كدم هدي أقلان ويان أقادا ويان رسالة إلهي عذابك كدم يا كحنون بضن. خامسا وحن كفائدة السنة أيضها قرآن سيقول الصبر جرين وإلهي عز وجل أمري إلي الصبران يقول عينيو ولا الدليو ولا قراعيو ولا عيبينيو ولا أفلقادينيو أي كالصبريان رسوشا إيو أتباع دودا دادك يقول الصعودة ساسانا لقربا. وأخيرا وحا مركا إيمانيا مركا إلهي حكم كيسي يماده إلهي عز وجل وحو أمريا نبي يدا إيا دادك الصعودة وحليا فاصبر واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فاصبر كما صبر أولو العزم ولا تستعجل لهم. إله عز وجل وعليا واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. الصبر بالفريا محايا لي محا كدمي حكمك إله عز وجل أيا كدمي إن لها لاقم مجرمين لنا بدباديه مؤمنين صالحين فلننظر أنفيرنا نبي الله نوح عليه السلام إسقى يقوم كيسي وحيد أحمري يصيده وقلنا صيحيني. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا
وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا والنوح في رسول الله اللي قوم كيسا يا قوم نوح ما نصدرنا قوم كيسي وحلينا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك أودك قوم كاغا غير كاغا أودك تل كاغا أودك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم انت أنا أؤمن عذاب حنون بدن أو دب بدن عذاب كاسنا وحوي مركي طوفان لغوها لاغي لغوها في مركي وانت هبين إيمال وحال لي يابا ددكو لي يابيان نبي الله نوح ميانو داليهين كن سنو كنتن سنو دمان 950 سنو أيوح لي يا قوم تلكيو ورتلكيو هنون هبن يمالن قلب يا الصبح أيو ساسكو أيام سقرصون سيجارة سعان مربسي أيو كدي يا هلا يمحوق عرون ويودي ورتت كان وحبا رومين ميان وحبا أميني ميان أنا اسكت تجو وركودا اسكت أيو وحبا رومين ميان ماي 950 سنة أيو سيدا كتاجنا ummadaha laguma qiyaaso sanad iyo 2 iyo 10 iyo 100 iyo laguma qiyaaso ummadaha umrigooda rasuulka iyo ducaada dadka la dirayo ee ilaahay diintiisa dadka ugu yeeriyana dad daalan ma aha kama daalaan inay dadka u sheegaan inay ka naxaan waxa sugaya laana maalinta ciqaabtu timaado dadkaas waxa weeye dhibaatada ay marayaan ay og yihiin waayo ilaahay bi cilmi u leeyihiin ilaahay kuma degdego ummadaha عقابكودنا كوما دغدغو لكن marka uu qabto markaas waxa ku dhacaya cadaab xanuun badan ilaahay suurad kale soo kaga sheekeenayo wuxuu yiri markii dhibaatadii ay dhamaatay waqtigu uu dhamaaday وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون خلاص وصلنا ماتي هيغلها اللي مباليدي ددكن waa la ciqaabaya ilaahi uu ka carooday risaaladaadii waad gaarsiisay maanta ka bacdi cid kale oo rumaynayso iyo kamid ah ma jirto iimaan damo oo ay helayaan ma jiro ee sug adigu waxaad sugaysaa amarka ilaahi azza wa jalla wala tukhatibni fi alladhina zalamu innahum mughraqun kuwaas waa la hafinaya bali tan hafintu iman ayaa ilaahi u sii sheegay in la hafinayo oo duufaan lagu soo saliday ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب عظيم مركز نوح ولو جيسيا حليا اربل فير دون بو سمينا يا ماركتين نوح دون بو سمينا يا بالي قال فإنا نسخر منكم كما تسخرون وأركي دونتان مربان إذا كنت جيسي دونا مركي إلهي عز وجل ضدك مؤمنين تاو دون تصارو إذن كنا أدكوها فتان بدا قالوا أردن مركز أركي دونتان قفك قوليستي قفك كلا حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور
قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. نعم إلهي عز وجل إياقي وحصاري دونتي إياقي بالغو بدباديي دونتاسو وحي لما ريسا موجده بورها كواوين وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ويلكي جاهل كاها وحيري مركو طوفانتي أركي أبيس ويري والنبي ماندو كالي نلا صوفول قال هذا هلا صعون ماندو صوفول دونتا صوفول أيوة عيري سآوي إلى جبل بورتا تجي buurtaan gabaad ka dhiganayaa si aan duufaantu ii soo gaarin oo biyaha iga celiso wuxuu ku yiri nuux alayhi salaam maanta meel ilaahay amarkiisa looga cararaya ma jirto la caasima al-yawma min amri illahi illa man rahim. ikhwani akhawati walaalayaal ilaahay amarkiisa ilaahay xukunkiisa meel looga cararaya ma leh ee fuula doonta ilaahay azza wa jalla doontaas waxa weeye كتابك إلهي السنة النبي عليه الصلاة والسلام الراعه مساجد iyo maraakista islaamka oo lagu dhiganaado khaasatan dadka jooga dhulkan galbeedka ee gaalada ku dhex jira la caasima lahum inay ka agdhowaadaan doonta safiinatu nuux oo kale ah waxa weeye masaajida iyo salaadaha iyo jamaacaadka inay ku badbaadaan wa illa la caasima al-yawma min amri Allah wax kale oo ka badbaadin kara dhibaatada iyo duufaanta sidata ma jirto oo lagaga badbaadayo aan ahayn ilaahay azza wa jalla diintiisa oo lagu dhaganaado waxaan idin dardaarmi naftayda idinkaba ku dhaganaada kitaabka ilaahay iyo macaamilkiisa iyo qiraa'adiisa iyo tadabburkiisa iyo inaad macnihiisa fahamtaan inaad akhrisataan hadiya jeer caruurtiina inaad ku ababisaan inaad akhrisataan inaad fahamtaan inaad waqtigiina ku bixisaan masaajida shanta waqti raggu inay ku tukadaan meel allaale meeshu ka jiro oo fog u raadso maxaa yeelay la caasima min amri ilaahi azza wa jalla oo ku badbaadiye mooyaane kuguna badbaadiye doontaas oo ah maanta masaajida iyo qur'aanka iyo sunnada iyo diinta meesha lagu hayo muhaadarada iyo darsiga iyo diinta meesha lagu hayo iyo sadaqaadka iyo khayraadka iyo wanaaga dacaayaadka hadhageysa dacaayaadka iska dhaaf waxa la sheegay iska dhaaf reer hebel baa waxa u shaqeeya iska dhaaf wadaadkaas reer hebel buu ka shaqeeya iska dhaaf la caasima al-yawma min amri Allah illa man rahim wallahi inaan wax kale ku badbaadinay wiilkii nuux kama fiicnin نبي الله نوح إله عز وجل أكتيس كرامة كله ويلكسي مركو قالوا بي ودينت إله الديدي وحالقوا يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح تاسو واحد سورة وعن سوق هذا إنها بل صور كلا إن أرقنو قف النبي أهين ليس نبيا لكن بل سيدا قرآنك oo noo tusinayo miisaanka ninkaas wax saar waa nin mu'mina kaliya nin mu'mina waa ninka mu'minka wuxuu la hadlayaa tolkiis dadkiisa qabiiladiisa uu la hadlay Soomaaliya hadaatiin kulli qabaa'il batiin qabiiladiisa uu la hadlayaa wuxuuna noo tusinayaa qofka mu'minka sida loo baahan yahay qabiilkiisa inuu la hadlo ugu naseexayo
war hooy ha la iska daayo hadalka beenta war hooy waxa beenta oo tolbaan u nusraynaya oo gargaaraya ha la iska daayo war hooy qabriga waxba kuma taraysa ha la iska daayo war aakhira wax kuma taraysa ha la iska daayo war ilaahay agtiisa qiimo kagama yeelanaysid ha la iska daayo war ilaahay agtiisa qiimo waxaad kaga yeelanaysaa kitaabka ilaahay markaad gacanta ku qaado oo reerkaaga aad tiraahdo war yaar waa kan qur'aankii soo raaca war halkana liibaan idinku jirtaa war ciddan kan soo raacin wallaahi baan waxba naga dhaxayn taas inaad ku tiraahdo waad ku liibaanaysaa ninkaasu qisadiisa ilaahay casa wajalla qur'aanku kaga sheekeeyey tolkiis waxay ahaayeen dad markaa iyagu adduunka haysta oo xukunka leh uu digay wuxuu yidhi war hoy ha kibrinina war hoy kibirka iska daaya war waad ku halaagsamaysaan war waad ku dulloobaysaan war yay been idiin sheegin adduunyada war noloshu waa tan aakhiro saasoo kalaa la rabaa ilaahay wuu karaameeyey magaciisana wuu xusay oo khaaliday oo ilaa maanta ayaa magaciisa qur'aanka lagu akhrinayaa ninkaas waxaa la yidhaahdaa mu'minu aali fircawn أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذب وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب إجنين أمضي هو ودي ورمضي هو رماشي مرين باردين كبقى يا أبو أدونك وعبروين ورئمسا أمضى أدونك سوحو كنتي ورئمسا قبيلوين سوحو كنتي وحبا مطرين تقا ويدا ماذين ولا دوغي waxa ka haraa waa magac iyo taariikhduna wuxuu ku haraa inay ama wanaag uu ku haro ama xumaan uu ku haro haddii ay iimaan iyo xukun ilaahay iyo diin ilaahay la yimaadaanna magac wanaagsan baa u haraa haddii ay xumaan iyo sidii ummadihii kale la yimaadaanna halaag iyo magac xumo iyo ceeb baa u timaada wax kale oo qabaa'ilkii tegay iyo ummadihii naga horreeyay laga soo qaadayaa ma jiraan يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد إلهي قلنا ما ظلمنا قلوا إلهي ظلمنا يا مجر قلوا إلهي أحنا يقول كلا وكأحنا يا مجرته هو عمل كذا قلوا البوحي سميسات كونا عمل إيمان بكر وقاد كونا كافر نمو مجرم نمو يدم بهاصو لغاية وحكالاتو يكوكال دويهن مجرته وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد ما لنت الله يسلعنا ذا آخر أيام إذن كدق يا أبو ما لنت أسان إذن كبق إياه ما لن لعنض إسلعنا ذا إسان كوينا مدحضة
iyo kuwii hogaamiyeyaasha ahaa iyo kuwii hogaaminayeen mid walba midka kale uu lacnadayo oo kan kale caynayo adaa meesha noo horseeday adaa balaayada noo keenay adaa meeshaana dhigay adaa waxaana dhigay iyo idinkaa mujrimiinaha idinkaa i raacay idinkaan i toosin maalinta lays eedaynayo maalinta laysu yeernaayo beenta ah ayaan idinka digaya cilmiga saxiixa waa kaas cilmigaas waa cilmiga saxiix waxa kale waxba kama jira sheeko weeye waxa kale يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب حليها هربا نبي الله يوسف إذن كيمي أو إذن شاقي دينتا إلا فراعنة دو مركز بيقى هيستي مصر لكن واد بين السنة واحد ترى هذا انقضاشي سنة وحنا بيا ما إيمان أيام sidaasoo kale ilaahay wuxuu leeyahay oo u lumiya oo u baadiya kuwa shakiga badan ee diinta ilaahay ka shakiya saasa ilaahay u lumiya ninkaas wuxuu nasiixadiisa soo wado waa lagu diiday fircoon wuxuu ku jawaabay war meeshan muuse wuxuu wataa inuu dadka kala jabiyo halla yidhiso sarx iyo jaranjaro bal samada aan soo fiiriyo kibir iyo isla weynaan dadkii shacabka ahaa ee uu la hadlayay ninkana isagii bay ku raaceen ninkaasu ma daynin hadalkiisii ma dayn weli khudbadii buu sii watay isaga oo qowmkiisii iyo reerkiisii iyo tolkiis isaga oo naseexaynaya وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب الدنيا ذا وإسكم متاع بينا والراحة يركوبا كوب يا عبتي وحبك ما هي ساعات كدي انت أسوي لكن آخر إذا وحيتهي هي دار القرار ماشي لقول نقانيو محل قلت يا من عمل صالحا من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها قفك دم بسمي دم بك يونتي ينبالو قرياه ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لم يدد قحي هبكي مؤمن أو إيمان صالحا يوناق لي ماذا فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب كواسا جنة انت اللي قليه بغير حساب أي اللوغو إرزاقه مركز وادنا الدقنين وقع ورمحاد لما قليل أدين ورمحان خير بان إذن كو يريا أدودي ديسان والشرط إذن كون أديقو يريسان يدباتو آخر كينا وعواد الكيسي كسو قبقبيي واد حصوصا دونتان هذا الكان إذن شيقيو مالين مالها مانتان هين باد حصوصا دونتان مركز يدمعين إنا يدلان مركز إلهي كبت بادية قعنتو هذا كبت بادية مكرقي إيا حاشي إيا دبن دابية دي وذن إلهي وكبت بادية إياقينا نار بالوكوصي مع فرعون كودي نار بالوكوصي إساقو أضاقي فرعون مجرم كأو هقامين أيو أدون كان كو هقامين أيو إساقا نار تانا كو هقامين أيو صباح إيا قلب نار بالوصو بندقا حتى النار بيكو جيران قلب إيا الصباح نار تا إيا الله بندقا مالين تقيامة دعدنا نار تا سفي عن الله وكوصيا reer fircoon iyo wixii la socday iyo wixii raacay iyo wixii u talinay iyo wixii la talinay
عير إلهي عز وجل وقال الذي آمن يا قوم إني يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب نعوذ بالله من ذلك ما لنت قيامة كعدنا وحيل الله عز وجل فرعون iyo reerkiisii iyo tolkiis iyo wixii daba socday oo dhan naar ha lagu kuuso ha la geliya ashad alcadaab cadaab midda ugu xanuun badan ha la geliyo nacuudu billahi min dalik aaway taladii maxay tartay maxaa qur'aanka loogu sheegayaa qur'aanka maxaa taladan loo keenayaa maxaa yeelay axdaastu way soo noqonaysaa bilaash miyaa loo keena qisada ninkan mu'minka ah waa nin hal nin way hal qof way qof keligiisu reer dhan baa ilaahay ka soo dhex dooray ninkaas oo hadalkiis ka sheeg waayo nin mu'min uu ahaa war waa in laga helaa rajulun mu'min min kulli qabiila rajulun mu'min yaa laga waayay qabiilo wal oo yiraahda yaa qawmi ittabi'uuni ahdikum sabiila ar-rashaad war ka hara waxaad ku socotaan ka leexda war waa idin la talinayaa wanaag baan idin la doonay xumaan idin lama yaa qawm ulay tolkayo laakiin ma yan ku cibro qaadan fircoon baa ka tala badiyey oo yiri ma uriikum illa ma araa wama ahdiikum illa sabiila ar-rashaad maxaa ka badan faraacinada kam min al-faraacina كم وكم فرعون أيا أمدي سلمية أو تلقي سلمية أو قبيل دن لمية إمي فرعون أعوذ بالله من الخذلان إله عز وجل عبروين بأغسق يا قرآن والقرآنكم ماها كتاب ما الله يسكدق ودورك الله سارة ولا بركيسته وميسك الله سارة أرماجد الله سارة ماها war waa kitaab nool oo hadlaya war waa kitaab nolosha inoo cadaynaya waa iftiin mugdiga inuu ku jirno naga saaraya waa xal mushkilaadka inuu ku jirno naga bixinaya hadaynu laakiin ka dhigano kitaab aynu barakaysano oo markii ducaaynu qabno inoo soo akhriyo duca la qabaay hal akhriyo marka kalena la iska laabo ilaahay uma soo dejin kitaabka sidaas ilaahay wuxuu soo dejiyay in la tadabburo macaanidiisa la fahmo وفي قصة أخرى أنكسو ختمية هل قصة سوحة وهي نمانكي صدح لها الرسوشة أها علماء قاركود وحي يراهدون وحي أهايين نبيه علماء قاركود وحي مي نبيه ما هين وحي أهايين نمن نبي أصدري نبي عيسى أصدري عليه السلام oo balda la yiraahdo Antakiya ee dhulkan Suuriya iyo xuduudda Turkiga ku taala oo u soo diray inay tuulada soo wacdiyaan ay wax u sheegaan ay khayr u sheegaan
ولكن ما ينقاضا تلادينا لقب قاضا بل ولا أفلقاد يوحى لي روا إذن دلينا يرتقى حوان إذن لدعينا عددنا نمشي سكتكين انت أسويكو صبرين ما ينقايلين سموالين سمددجين ما عران ما عيتمن ما حيرا أنك الرسول الله إلا صادري حداد أقبشانا خير حداد أقبلي ويدانا إلهي عز وجل يا إذن كشغل له أنك إن الرسالة إذن قارسينه أمبا مهمة يدو طاهي dadka ducaadana muhiimadoodu waa intaas muhiimadoodu waa intaas ma hayaan xoog ma hayaan tabar kale ma hayaan wax kale xaqa inay ummadda u bayaaniyaan weeye oo ay xaqa u sheegaan in calayka illa albalaag ama natiijada iyo waxa ka iman doona ilaahay bay gacantiisa ku jirta xukunkeedu gacanta ilaahay buu ku jira nimankaas iyagana nin baa isdhinac taagay ninkaas uu isgarab taagay ummadii oo dhan buu ka soo baxay tuuladaas deganayd ama magaaladaas deganayd nimanka rususha ay buu rumeeyey tolkiisna wuu wacdiyey oo wuxuu yidhi war diinta ilaahay qaata kitaabka ilaahay qaata war rususha ilaahay rumeeya lagama yeelin waa la dilay markii la dilay isla markiiba ilaahay caza wajalla jannu geliyey qiila adkhulu aljanna qaala yaa layta qawmii yaclamuun bima ghafara lii rabbii wajacalanii min almukramiin ninkaa rusushii ilaahay qisadooda uu ku sheegay fi suurati yaasiin markuu ilaahay laba rasuul u soo ordiray إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وإن نظنكم لمن الكاذبين رسوشي ولا بين لو يالباتين قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينصرون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون نكاس مركو إيمان كسي إعلان سدي ولا دلي لكن إمسا أيا دلكو كقيمة بدنيها النولل إمسا ويبضنتها إمسا النولل أيا دلكو كقيمة بدنيها لما ترنك إمسا النولل أن قيمة لهين لنولي هاي إمسا يا إخوان ما هقفكم حكو دنتي إمسا قاريغا شاق هوستي سكو دمانيسا إمسا عذر دمانيسا إمسا قري كو دمانيسا إمسا أكسيدنت كو دمانيسا ماها معنوه محو دنتي قفكان ماها محو كدنتي وي محو كدنتي هذا هو السؤال سؤال شتاسوي محو كدنتي وقف
muxuu ku dhintay hadduu ku dhinto raallinimo ilaahay fayaa fawzahu yaa ka fawz badan imisaa nool laakiin nolol aan qiimo lahayn nool wax qiima ku fadhiya haba yaraato way dileen innii aamantu birabbikum fasmacuun markuu yidhi ayaa la dilay waxaa la yidhi minshaar baa lagu kala jeexay madaxa inta laga bilaabay ayaa lagu geeyey ilaa lugaha labaa loo kala banbalay isagoo dhan laakiin laa qiimata lidalik wax qiimaa ma laha haba yaraato bal hadduu shahiid yahay maba dareemayaba minshaarkan iyo dilkan maba dareemayo sidii qodax jirkiisa saa loogu mudayo kale waaye maa yajidu shahiidu min masi almawti ila kama yajidu axadukum min masi alqarsa yani qofa saa u qanjaruufatay oo kale waa bas ma dareemayo shahiidku waxba kama dareemayo qiila dkhuli ljanna قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون إلهي وكا أرغوستي مؤمنك إلهي وأرغوي إلهي وأري تولدينا ولا بابئي من الله باهنا إن عيدا لغسو دجيو إيا دبابات إيا ديارضة إيا عيدا أسكر إن سمد لغسو دي لا ما باهنا ما يحتاج وحيو باهين ما بلا ما يستاهلان إن عيدا الله صدره إن كانت إلا صيحة واحدة هل دواقوا ملك بعد دواقوا كلية فإذا هم خامدون ما سدمان توضبا وابا إذن وابا بابا إبر كود يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أيها الإخوة ملاحظات كأن كملاحظين إن قصوين أيام وحكسوا قاضية كو دائما قرآن كوحن كالله حدا إن قصوين كيسا الملأ نمنك الله يرهذ ملأ نمنك الله يرهذ أضيال iyo madax iyo hogaamiyeyaal iyo maalqabeen ee xukunka haysta ama qabiilo ama magaalo ama wadan nimankaas waa nimanka had iyo jeer ummadda rugax baabi'iyo قال الملأ الذين كفروا من قومه قال الملأ الذين استكبروا من قومه بل رسول والبأركة dadka ka hortagayiin ma dadka ducafada may وملأ الملأ ملأ وحوي نمك إيش بوحين يسوي مقالات يقول لنا يا سلطان يا حكم كذا دينتو إن كهر إيمان يسوي لنا محايلة دينتو بحيلة عدالة هلا سناد مرة بان دينتو وحيلة هاي هلا سناد مرة بان دينتو وحيلة حكم إلهي الله كان سما قفوا حكمه يا مجرو يا وحيلين ما يعني قاعد حكمينا محيو دي يعني ملأون هذه يجر لأن السلطان يحكمك يلعقتا iyo magac ayaa gacantooda ku jira ay ka baqayaan islaamku in waxa soo dhan ka xayuubiyo ummadda u celiyo ummadda la siiyo ma rabaan marka almala daa'iman waxa way dadka ka hor yimaad halaga digtoona hal ogaado illa qofki ilaahay uu soo hanuuniyo maahay mid labaad quraanku wuxuu tusinayaa dhammaan qisooyinka quraanka ee ummadahaas iyo dadkaas aan ka soo sheekeynay qaarkood inuu had iyo jeer quraanka iyo iimaanka nasabka in laga hormarinayo kan dhiiga ah inay ka horeyso kan iimaanka inuu ka horeeyo oo nasabka iimaanka marka uu yimaado walaaltinimada iimaanka ah nasabka dhiiga aan wax boosa meesha uu ku lahaanayn haba yaraatee inna akramakum inda allahi atqakum baymas nabiyullaahi nuux wiilkiisii uu jeedaa la yiri ka har maaha tolka maaha qaraabadaadana maaha نبي الله إبراهيم كجوك بالي استغفار هو ضلبن أعطها هؤلاء بدافع ويدين الإله
فلما تبين له أنه عدو لله إنه عدو إلهي هي مركو أقادي تبرأ منه بريء بك النقضي بالي إبراهيم إننا وحالينا يري مثال بعد كل هذه هي تصالح نبي الله إبراهيم يددك لسعودي قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ساسير هذين إبراهيم يددك لسعودي تلقوا وحكوا هذين قالوا لقومهم بريء بان إذن كناهي إيا واحد عبديسان والشرك قاعد دبضك وضطان إيا قالب يبلغ واحد دبضك وضطان بريء بان كناهي حلنا هي بريء بان كناهي وحلا على إيا وحي وحن إسلام هين دبضك وتبريء بان كناهي وقال نما دبضك وتبريء بان كناهي ووحن دينتا إسلام كي قرآن كي سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام هين بريء بان كناهي وحس إلهي نمسو قريو ساسير هذين taasna quraanku wana tusinaya ilaa iyo taariikhda oo dhan ummadaha oo dhan taariikhdoodii nasabkaas iimaanka ayaa ka horeeya nasabka dhiiga arrinka kale oo saddexaad waxa weeye walaalayaal bal u fiirsada quraanka dhan ummaduhu marka cadaabta ilaahay ay soo degtay caasiyaan wallahi inaanay ilaahay azza wa jalla agtiisa wax qiimo ka joogin warqadaas kama joogaan ilaahay azza wa jalla agtiisa maxay qiimo beelayaan oo qiimo jabayaan xoolaha lahaadeen تكنولوجيا هذين وعول بالهذين مر هدي إلهي عاصيان تهون الأمة على الله تبارك وتعالى إلهي أكتسب حقيمة كما يلنسو تاسنا وأرن ثابت وتاريخ ضد القرآن كان كواركين أرن كأفراد وحويه إن أي دائما جريسو صراع بين الحق والباطل ما هل وين الدنيا اللي جمع وين حق يا باطل إن يدر ريان هدي إلى قيام ساعة أساسي يدر ريان إلى الدجال أصابه ساسا لو دريا حق يا باطل بالله يسوى هيسنيا حقنا آخر كجوش له والعاقبة للمتقين وحكستو باطل كوبدبوده آخر كقصده وحاله وعصب معها مركا إن يدريران ما أنت باطل يا حق أرهن عصب معها بل إلهي النبي عليه الصلاة والسلام ولوجا شكيه ولوجا يري هذيك اللفتة وحلي وحن كاجا شكيننا نبي يدي هراء يقومهم كذي سيد باطل كي حق هذه جرود الرجلين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة للمتقين نعم وهكذا وأن كفهمينا قرآنك إني arrinka aayadan noogu sugan tahay dadka intooda badanna aanay rumaynayn qur'aanka iyo diinta aanay rumaynayn taas ayaa xaqiiqada qur'aanku noo sheegaya ay tahay ilaahay azza wa jalla wuxuu leeyahay inna fi dhalika la aaya wama kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwa al-aziz ar-rahim aayadaas 8 jeer bay ku soo noqnoqotay suuratu ash-shu'ara 8 marrat ayay ku soo noqnoqotay ومر والبإله إليه إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أرنك اللحاد وحوية ضدك مؤمنين تعدبها تذا كجرة وقرآن كوكب بشارين إياه إن يقول ليسان إياه نصر إليهن أرنك تطبع وحوية أمد مبدل ميسه إلا إن النفط هذا قلوب تذا يبدشوا معهن أخيرا إن إصابة إياه وحا كل عينا أي كجارين دنبي يجح جود كيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى كل خير إلهي وحن كبر ينين ونقدر هو قرآن كفهم أو قرآن ككو عمل فلا أو قرآن كتدبره أو كتاب كعزة كجرت النقضة اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا
اللهم اجعله سائقنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعله في الدنيا رفيقنا، وفي القبور أنيسنا، وفي القيامة شفيعنا، وعلى الصراط مثبتنا، وإلى جناتك قائدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاه الله خير الشيخ محمد إدريس محاضرة قيمة ku saabsan quraanka iyo xaaladihii ummadihii hore siduu u saameeyey innagana allah inaga dhigo subxaanahu wa tacaala dad uu saameeyo quraanku oo tadabbura ducada uu walaalkeen inoo duceeyeyna allah subxaanahu wa tacaala ha ka aqbalo isagana ajar iyo xasanaad allah ha ka siiyo walaalayaal muxaadaradan oo ah muxaadaradii saddexaad maalintii ugu dambeysay su'aalihii oo aan runtii badnayn ayaan insha allah u geli doonaa. su-aasha ugu horreysa waxay leedahay inuu sheekhu ilaahay ha ka abaalmariyo noo kala waadixiyo ama uu noo sheego habka ugu fudud ee qofka hadda nool ee muslimka ah uu quraanka u saamayn karo. habkaas su-aashaas ayaa dhowr jeer soo laalaabatay iyo su-aal kale oo carabiya markaa sheekh ayaan ku wareejinaya jazahu allahu khayr. الحمد لله. waxa weeye qur'aanka qofka dadka mu'miniinta ah wuu saameeyaa qulubtooda ayuuna taabtaa. ilaahi caza wajalla wuxuu leeyahay kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakkara ulul albaab. ilaahi caza wajalla wuxuu leeyahay allahu nazala axsana alxadiisi kitaaban mutashaabihan mathani تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إله عز وجل وحوت المامية كتاب كان كريم كوسودجي إن ضدك مؤمنين تاه فهم تدبريه وطابنا قلبي قوضا يجركودا ولا جري رعانيه قلبي يضودنا إلى قريريان. وقال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه قرآنك وكوزي يدين إيمان يؤدوانشو إله عز وجل مركا لغود الأخريو تاسو وحيت الماميسا إن قرآنك وكتابنا يمؤمن آتاي ذلك مؤمنين تاوحي إلهي وقوة قرآنك مركا إلهي لحصنا qalbiyadoodu ay cabsadaan marka aayaadka ilaahay lagu akhriyana ay iimaan u ziyaadiso iyo ilaahay u dhawaansho oo jirkoodu uu la jariirocdo. marka calaamaadkaas waxay tusinayaan iimaan qalbigaaga uu ku jiro. marka qur'aanku sidoo u saameyn karo waxa weeye in kitaabka ilaahay la akhriyo oo la tadabburo, in akhrintiisa la badiyo oo tadabburkiisa la bariyo. tadabburku waxa weeye ku fikirka macaanidiisa inaad ku fikirto oo aayaadku inay adiga kula hadlayaan aad u aragto qof kale inay la hadlaan. inaga mushkiladayna haysato waxa weeye qur'aanka marka la akhrinayo waxaan u maleynayaa ummad kale inuu ka hadlayo, inaga iskama ma fiirinayn. waa inaad qur'aanka u aragtaa inuu ilaahay adiga kula hadlo. aayad walba oo yaa ayuha alladina aamanu adiga inay kugu socoto waa inaad u aragtaa, oo qofka waxa ay tilmaamayso qofka ku jira inuu adiga yahay waa inaad u aragtaa. saas darteed ayuu qur'aanku wax ka bedeli karaa, waxna ka saameyn karaa noloshaada. ama haddii aad u aragto kitaab dad kale soo degayo meel kale ka sheekeynayo, dad hore qurumo hore tagay ka sheekeynaya, markaa kuma saameynayo. sidoo kale waa inaad qur'aanka aad akhrisataa, aad badisaa akhrintiisa, tadabburkiisa iyo macaanidiisa fahamkeeda aad badisaa, ku camal falkeeda aad isku dayda aayad walba ama camal walba inaad ku camal fasho, inaad barato. taas ayaa waxay keenaysaa insha allahu tacaala inuu ilaahay kugu irsaaqo inay ku saamayso qur'aanku inuu saameeyo noloshaada.
هل كان سؤال بطالة وحلبها هي خيرة علماء الصومال أعدموا بسبب مواقفهم البطولية بالدفاع عن القرآن العظيم وعرى الإسلام وشرع الحكيم، ولم نسمع من العلماء حتى التنويه بهم والإشادة بهم رحمة الله عليهم. فهل بنا من الذل حتى وصل بنا الحال الاستعانة بأشد أعداء الإسلام الحبشة وكيه؟ المهم رسالة معناها وحوية علماء الصومالية dadkii fadli badnaa ama dad ka mid ah ayaa la icdaamiyey la dilay oo la dilay maxaa lagu dilay bisabab mawaaqiftoodii ay la istaageen mowqifkii cadaysteen ee ahaa inay difaacaan qur'aanka kariimka ah markii la bedelay ama la isku dayay in laga bedelo aayaadkiisii wax ama laga hadlo ayay hor istaageen waana la toogtay sida aan ognahay oo 10 ka mid ah ayaa la toogtay marka waxay leeyihiin iyagoo difaacaya qur'aanka iyo islaamka maxaa looga maqli waayay culimada tanwiih inay sheegaan ama se maxaa dulligu maanta na gaarsiiyey inaan laga hadlin xataa in waxyaalaha dhibaatooyinka aan ku jirno ee aan kaalmaysanayno dadkii cadowga inoo ahaa sida xabasha iyo kenya nacam horta yani ilaahay caza wajalla ayay ku leeyihiin ajarkooda culimadii calaa madi alayaam u soo halgamay islaamka taariikhdiisa oo ay ka mid ahaayeen culimada soomaaliya ayna ka mid yihiin kuwa jooga iyo kuwa dhintay siduu ilaahay caza wajalla uu yidhi min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh faminhum man qadaa naxbahu wa minhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila rijaasha waxaa ka mid ah mu'miniinta waxaa ka mid ah rag baa ka mid ah raggaasoo wixii ilaahay caza wajalla ballantay la galeen ilaahay caza wajalla oofinaya ballantay la galeen oo ah diinta ilaahay inay difaacaan qaarna waa tageen buu leeyahay ilaahay way dhinteen oo way shahiideen qaarna way sugayaan oo waddadii bay ku taagan yihiin wamaa badaluu tabdiilan mana iyan bedelin waddadoodii ma iyan bedelin taas horta waa sunno ayan ka zuuli hayn ummadda islaamka meel kastoo ay joogto inay jiraan had iyo jeer culimo xaqa ku taagan iyadoo ay bataan culimada culamaa suuga la yiraahdo ee maaragtay munaafaqeeya xukaamta iyo dadka la mid ah munaafaqeeya iyadoo ay bataan zamanada dambe ayaan la waayahayn mar kasta culimo xaqa ku taagan oo diinta ilaahay caza wajalla difaacada ayaan la weynayn waxaan ognahay taariikhdii ka dambeysay culimadaas culimo kale in dil lagu xukumay wa kale in la xabsi la geliyay intaasoo jeer inay xabsi soo mareen ilaa iyo hadda inay dhibaato kala kulmaan oo ilaa iyo hadda xataa cadow in loo dhiibo cadow in loogu gargaaro dad muslim sheeganaya oo islaam sheeganaya oo magacyo islaam wata inay muslim ay gaalo u dhiibaan oo ay ka tijaaraystaan muslim in la dhiibo waxyaalaha ugu dambeeyay si aan saa'ilka u tuso culimadu inaanay ka aamusnayn halkan waxaan ku hayaa hadda bayaan ay soo saartay dalladda culimada oo xafiiskoodu uu yahay muqdisho dalladda culimada waxay u soo saartay bayaankan ay kaga hadlaysaa shirka ka dhacaya kenya iyo ahdiga la qortay waxyaalaha جزاه الله خير ولكن waxaan kusoo gabagabaynaynaa muxaadaradeena maanta qayimka ah ee uu sheekhuna sheekh maxamed idriis noo akhriyey duco ay soo dalbanayaan dadka walaalihiina ee dhibaatooyinka qaba iyo dadka sadaqada bixinaya labadaba in ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibka uu ka qaado kuwa sadaqada bixinaya in ilaahay subxaanahu wa tacaala ajir uga dhigo gabar ayaa waxay soo qoratay labada keliyoodba ay xanuunayaan mid laga saaray tii kalena ay baabaa tahay in duco gaara loogu duceeyo gabar kaloo iyaduna lacag bixisay waxay rabtaa in loo duceeyo marka insha allah sheekh ayaan rabnaa inuu duceeyo alxamdulilah gabadhaas walaasheena oo keliyaha xanuunayaan ama ka jiran ilaahay caza wajalla waxaan uga baryaynaa caafimaad degdeg inuu ilaahay siiyo ilaahay cudurka inuu ka qaado ilaahay keliya xanuunka inuu ilaahay ka qaado inta muslimka ah ee jiranna ilaahay inuu jirada ka qaado caafimaad iyo camal saalixa inuu ilaahay ugu bedelo ilaahay caza wajalla inuu noloshooda u barakeeyo camal saalixa iyo cilmi naafica inuu ilaahay waafajiyo dhammaanteen baynu ilaahay dembigeena dhaafo wixii hadal iyo camal iyo ficil aan ku keensanayo dembina ilaahay inuu naga dhaafo ilaahay inuu camal saalixa iyo cilmi naafica inuu ilaahayna waafajiyo
maalintaan la kulmayna inaan ilaahay la kulanno isagoo raalli naga ah inaan ilaahay la kulanno ilaahay caza wajalla dadkii walaalaha sadaqaystay wax ilaahay ha ka abaalmariyo ilaahay risq waasica oo ka khayr badan allah ugu bedelo maalinta qiyaamana mid ay ku farxaan allah ka dhigo ilaahay caza wajalla waxaan ka barnay kuwa khayrka u gargaara iyo wanaagga inuu naga dhigo sharta iyo xumaantana aan u gargaarin inuu ilaahay naga dhigo ilaahay kuwa khayrka isugu kaalmaya inuu ilaahay naga dhigo kuwa khayr ka qayb qaata ee ka qayb gala ee isu dulqaata inuu ilaahay naga dhigo kuwa khayrka u degdega ee u dheeraya inuu ilaahay naga dhigo wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala nabiyina muhammad jazaahullahu khayr intaa waxaa inoogu dhammaaday muxaadaradii maanta qayimka ahayd ee walaalkeen sheekh maxamed idriis noo soo jeedinayey